حقيقي ومهم أرنت ماشي عن مانتا عن سوون نمد وأنا أرين هرمر iyo tallaabo horuqaad muujinayso barnaamijka amaanta meeshan u fadhino oo ah partnershipka Hormuud Salaam Foundation iyo UNDP waa barnaamijyada ugu cusub oo la rabo in dalkan iyo dadkan wax loogu qabto waxaan wada ognahay Hormuud Salaam Foundation inay markii hore isu keentay Hormuud oo wada naqaano iyo Salaam Somali Bank hadafka la isugu keenana wuxuu ahaa in bulshadan wax loogu qabto oo lagu hormarsho dhaqaalaha haday ahaa lahayd hadii shaqo abuur ahaa lahayd hadii caawin kala ahaa lahayd maantay waxaan u fadhinaa in ay iskaashigaas mar kale lagu soo xoojinayo in UNDP iskaashi la yeeshay iskaashigaas marka wuxuu isu keenayaa khibradaha kala duwan ee meesha yaallo waan naqaanaa UNDP khibradda ay u leedahay arrimaha horumarinta international ahaan iyo meel walba ay joogaan iyo aqoonta u leeyihiin Hormuud iyo Salaam Somali Bankina waxay ku biiri doonaan khibradooda iyo infrastructure-kooda localka ah labadaas marka haday isu tagaan waxa ka soo bixi karo result kii hore ka sareeya xaqiiqda midnimadana iyo waxay isu keenida cid ku qasaartaa ma jirto horumar bay keentaa dadku haday wada xoogayeen midoobayo ama wax isu keenayo xoogay u wada saadisa haddii qayb kamid ah ay tabardartaana qaybtaas tabardarna xooga u saayisa qaybta xooga leedna xooga ugu dartaa marka waxaan aad u dhiirigelinaynaa in aan arintan hore loogu sii socdo wax badanna laga midoobo kana hadda taagan oo noo furo wadooyin waaweyn oo aad muhiim u ah كسلام سومالي بنك أهان أرمهان واحد بدنا كسر شقينيني بنك وبنك إسلامي أو مالجلين إيو فري ميكروفينانس ببيحية بنك ونحو تاجني هاي ضدك ومالجلنا يوم فيريو ورقف كان أصيغنا مؤبا هني هاي أدينه ما كفايديسه وفيريا وحنا محيب بالشدة كسو كردناي مركا مالجلين تاني استراتيجي نحو كسر لا يسنتهاي هو البول مالجلنا وحيب بالشدة كسو كردنايان adeegyada islaamiga nasaas u dhiseen gareysan qofkan wuxuu rabo inta iska qaato inay waxaan wax qofkan wax u taraayo bulshadan wax u taraayo inay naqdaan sharda marka waqti badan waxaan soo bixinaynay qardo xasan ama free microfinance wax loo yaqaano oo dad 10,000 qof ka badan ay ka faa'iideysteen lacag malaayiin ay ku baxday intaan hadafkeedu wuxuu ahaa in bulshadan lagu hormarsho oo dadku dhaqaale abuurtaan oo shaqaystaan oo qaybaha kala duwanaan loogu talagalay ee hoose wuxuu leeyahay darajooyin qofka lacag yar la siinaayo markuu ku soo guuleysto mid kale loogu diraayo markuu ku soo guuleysto mid kale loogu diraayo dad badan hadda waxa joogo oo businesskooda Ilaahay u bulaaliyay meeshaasna ka soo bilaabay waana xaqiiqdii arrin aan mar walba aan u taaganahay maantana aan isleenahay iskaashigaanu wuxuu ku soo biiri doonaa awood cusub iyo aqoon cusub iyo energy cusub marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in arintan ay ku dhamaato guul talaabooyin kala badanna la sii qaado hadda waa bilow inay soo xoogaysto hadii la idmo